Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka wararka Soomaalida. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah Wasiir Omar oo markii ugu horeysay ka hadlay sababta ay dowladda Soomaaliya xayiraadda u saartay Jubbaland. Wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliya oo la kulmay hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca. Madaxweyne Xaaf oo kulamo gargaar ka bilaabay Dhuusamareeb iyo qorshe halis ku ah dowladda Soomaaliya oo uu halkaasi ka abaabulayo xildhibaano lala xiriirinayo jabhadda ka dilaacday gobolka Awdal oo la xiray. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo digniin adag u diray dadka ka shaqeynaya burburinta maamulka Jubbaland. Ciidamada booliiska gaarka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kooxo burcad ah oo ku dagaalamay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Guddiga ku-meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo la kulmay madaxda maamulka Puntland iyo 10 dal ee dhalinyaradooda aan ka faa'iideysan oo la soo saaray iyo Soomaaliya oo qeybaha hoose ka gashay. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorka roona markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan. Maxamed Salaad Omar oo ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad wuxuu kaga hadlay sababihii keenay in xayiraad la saaro duulimaadyadii sida tooska ah u tagi jiray magaalada Kismaayo. Omar ayaa sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay go'aankaas qaadatay kadib markii uu aqoonsaday in uusan maamul ka jirin Jubbaland isla markaana ay u cabsadeen xuduudaha dalka. Omar ayaa xusay iyaga oo gudanaya waajibaadka ka saaran xuduudaha inay amreen in diyaaradaha soo maraan dhammaantood magaalada Muqdisho kadibna ay u sii gudbaan magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa sheegay inaysan jirin xanibaad la saaray magaalada Kismaayo balse go'aanka xukuumadda uu yahay mid lagu ilaalinayo danta guud ee dalka. Su'aal ayaa laga weydiiyay sababta aysan xayiraad u saarin magaalooyinka kale ee Soomaaliya oo ay kaliya u bartilmaameedsadeen Kismaayo. Wuxuu su'aashaas jawaabteeda ku bixiyay sida tan: waxaan aaminsanahay in magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland in uusan ka jirin maamul shaqeeya oo sax ah oo ay dowladda federaalk ee Soomaaliya aqoonsan tahay sidoo kalena xafiisyada immigration-ku ay ku yaalaan, ayuu yiri Maxamed Salaad Omar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Sidoo kale waxaa wax laga weydiiyay in ujeedka laga leeyahay xayiraadda uu yahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu soo xiro siyaasiyiinta Jubbaland. Ayuu ku jawaabay in arrintaas ay qalad tahay sidoo kalena aysan jirin wax xanibaad ah iyo sidoo kale shirqool lala damacsan yahay siyaasiyiinta iyo madaxda Jubbaland. Waxa uu sheegay in arrintaas ay been abuur tahay isla markaana aysan jirin in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay soo xirto mas'uuliyiinta Jubbaland marka laga reebo dad uu sheegay inay booliisku raadinayaan oo dambiyo culus dalku ka galay. Hadalka Wasiir Omar ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu soo saaray warbixin qoraal ah oo ku aadan xaaladda amni, siyaasadeed iyo mid bini'aadanimo ee ka jirta Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa garoonka Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland kadib markii diyaaradii uu saarnaa ay soo martay magaalada Muqdisho iyada oo fulinaysa amarka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Maamulka Jubbaland ayaa horey u sheegtay in xayiraadda la saaray Jubbaland in ay tahay sharci darro sidoo kalena aysan waafaqsaneyn dastuurka dowladda iyo midka maamul goboleedka Jubbaland. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ka dhacay kulamo gargaar ah oo u dhaxeeya wafdi ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca. Kulamadaas ayaa inta badan looga hadlay sidii Ahlus Sunna ay ku aqbali lahayd codsiga ka yimid madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sidoo kale kulamada ayaa looga hadlay doorka Ahlus Sunna ay ku yeelanayso soo xulista xildhibaanada Galmudug iyo sidoo kale tirada xildhibaanada ay u baahan tahay Galmudug in laga siiyo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Wafdiga ka socda xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhowr kulan waxay la qaateen hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca waxayna ku dadaalayaan sidii Ahlus Sunna loogu qancin lahaa in ay ka tanaasusho qodobada qaar oo ay ku dhagan tahay kuwaas oo horay ay u hordhigtay madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale wafdiga ayaa ka shaqeynaya sidii Ahlus Sunna ay kaga tanaasuli lahayd qodobkii ay madaxweyne Farmaajo isku soo qabteen ee ahaa in tirada xildhibaanada Galmudug ay ku yeelanayaan ee horay loogu ballan qaaday ee 30 ahayd in ay ka tanaasusho wixii lacag ah oo ay u baahan tahay in dowladda Soomaaliya ay ka qaadato.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka cabsi qabta in soddonkaasi xildhibaan haddii ahlu sunno la siiyo in codadkaas meel kale loogu faa'iideysto dowladuna ay arrintan galmudug kala kulanto dhabarjab. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa juhdi iyo lacago fara badan waxay gelinaysaa musharax Axmed Cali Kaari Qorqor oo isagu shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa lacagta ugu badan waxay ku bixinaysaa doorashada galmudug si ay u soo saarto Qorqor. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in ahlu sunna ay ku qanciso dhowr qodob in ay ka tanaasusho. ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka shaqeynaya sidii ahlu sunna ay kaga tanaasuli lahayd qodobka ah tirada xildhibaanada ay u baahan yihiin wixii lacagna dowladda Soomaaliya ay ka qaataan balse qodobka xildhibaanadu ay ka tanaasulaan. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa digniin culus u diray faragelin uu sheegay inay ku hayaan dad ka soo horjeeda maamulka Jubbaland. waxa uu sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay faragelin toos ah iyo qalalaaso ku sameyso maamulka Jubbaland. sidoo kale waxa uu sheegay in wixii dhibaato ay ka yimaado in dadkaas damaca siyaasadeed ku jira inay dusha saaran doonaan. sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland oo dowladda Soomaaliya ay adeegsanayso. waxaan ugu digaynaa faragelinta socoto kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hadda la abuurayaba taasoo dhammaantood ah duminta nidaamka jira, duminta dadka nool iyo sidoo kale dulmiga lagu hayo shacabka Jubbaland ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. cid kasta oo ku lug leh arrintan dib ha ugu baxdo haddii kale cawaaqib xumo ayaa ka dhalan karto iyaga ayaana qaadi doona mas'uuliyadda dhibka ka yimaada magaalada Kismaayo ayuu ku goodiyay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Sayid Aadan ayaa sidoo kale ku hanjabay in maamul ahaan ay isdifaaci doonaan maadaama dhismaha maamulka Jubbaland ay ku soo bixiyeen dhiig iyo maal fara badan isla markaana aysan aqbali doonin in shakhsiyaad gaar ah lacag lagu soo siiyo duminta Jubbaland. waxa ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in shuruud la'aan ay ku soo deyso wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan isagoo sidoo kale sheegay in sifo aan sharci ahayn ilaa hadda uu ku xiran yahay qof xasaanad lehna uu yahay qof xasaanad leh oo wasiir ka ah dowlad goboleedka Jubbaland in si sharci darro ah loo xiro waa qalad. dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah xuriyadiisa ay ku siiso Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka amniga Jubbaland ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore ku eedeeyay dowladda Soomaaliya faragelin iyo cunaqabateyn ay ku hayso shacabka Jubbaland. khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gaaray meeshii ugu xumeed. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa ka soo baxaya go'aano culus oo lagu cunaqabateynayo shacabka iyo maamulka Jubbaland. ciidamada booliiska ee magaalada Boorama ee Somaliland ayaa xabsiga dhigay 3 xildhibaan xilli ay ku sugnaayeen hoteelka Rice oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee magaalada Boorama. sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah waxaa si qasab ah lagu xiray hoteelkii ay ku sugnaayeen dadkaas. sidoo kale waxaa waaran qabasho ah loo jaray mas'uuliyiinta hoteelka. xildhibaanada ayaa iyagoo aan xasaanada laga qaadin waxaa loo ticaabay xabsiga waxaana kor laga saaray gaadiidka ciidamada booliiska ee Somaliland. xildhibaanada xabsiga la dhigay oo ay ciidanka Somaliland xireen ayaa kala ah xildhibaan Maxamed Maxamuud Faarax, xildhibaan Mustaf Xasan Laboqayle iyo xildhibaan Mustaf Innashiid oo dhammaantood ka mid ah golaha deegaanka Boorama. xildhibaanadan ayaa lagu eedeeyay inay xiriir dhow la leeyihiin jabhad dhawaan ka aasaasantay deegaanka Dilla ee Somaliland iyadoo halkaas ay ka wado jabhadda dad urursi isla markaana lagu tababarayo deegaanka bariga ka ah gobolka Awdal ciidamo aad u fara badan oo doonaya in ay dagaal la galaan maamulka Somaliland. dad badan ayaa isweydiinaya waxa iska quseeyo xariga xildhibaanadan xasaanada leh ee lagu xiray Boorama iyo jabhadda ka aasaasantay duleedka degmada Boorama ee gobolka Awdal. guddiga ku-meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo howlo shaqo u jooga magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa la kulmay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo sidoo kale xubnaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada Puntland. guddiga ayaa u sharaxay gudoomiyaha iyo guddiga joogtada cutubyada uu ka kooban yahay sharciga doorashooyinka qaranka iyo sida ay u shaqeynayaan guddiga.
gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji injineer Carab ayaa kaga mahadceliyay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland iyo guddiga joogtada sida ay u dhageysteen sharaxaadda ay guddiga ka bixiyeen cutubyada uu ka kooban yahay sharciga doorashooyinka qaranka iyo hanaanka shaqo ee guddiga. gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in guddigan howl wanaagsan ay wadaan sidoo kalena uu kaga mahadcelinayo booqashada ay ku yimaadeen Puntland. sidoo kale waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in deegaanada Puntland la tashi ay u yimaadaan guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa sidoo kale waxay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada Puntland. sidoo kale waxaa lagu wadaa in kulan gaar ah ay la qaataan madaxda sare ee maamulka Puntland. guddiga iyo guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa mar kale ku balamay in ay kulan isugu yimaadaan waxaana qorshuhu uu yahay in xildhibaanada golaha wakiilada Puntland in si toos ay ula hadlaan xubnaha guddigan si ay sharaxaad kaga siiyaan howlaha shaqo oo ay wadaan iyo sharciga doorashooyinka qaranka. 24 saac ee la soo dhaafay ayaa ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay howlgalo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyin hoostaga degmadaasi. howlgaladan ayaa saraakiishii hogaaminaysa waxay sheegeen in si gaar ah ay ugu sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Balcad iyo tuulooyinka Gololey ee duleedka waqooyiga ka ah degmada Balcad. sidoo kale waxay howlgal ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin ka tirsan degmada Balcad. taliyaha qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto Axmed Maxamed Tareedisho ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka waxa uu sheegay in howlgalkaas lagu soo qabtay dad badan oo dhalinyaro ah sidoo kalena baaritaan ay ku socdaan. waxa uu sheegay in dadka la soo qabtay intooda badan ay kaga shakisan yihiin in ay ku lug leeyihiin falalkii amni daro ee dhawaan ka dhacay degmada Balcad iyo duleedkeeda. waxa uu sheegay in sharciga iyo hay'adaha maxkamadda ee dalka loo gudbin doono. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka howlgalka lagu soo qabtay la saari doono maxkamad haddii ay ku cadaado dambiyada lagu tuumayo. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad ka daawanayseen channelkan. daawad haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.